Maamulka Koonfur Galbeed ayaa goob fagaara ku toogtay nin haweeney lagu magacaabi jiray Aamina Maxamed Malaaq oo ku lahayd deyn ku diray gurigiisa oo ku yaala magaalada Baydhabo xarunta maamulka Koonfur Galbeed. Kadib meedkeedii ku riday masquul. Ninkii oo ciidamada ammaanka maamulka Koonfur Galbeed ay gacanta ku dhigeen ayaa ugu dambeyn maxkamadda gobolka Baay waxay ku xukuntay dil toogasho. Xukunka kadib ayaa lagu toogtay goob fagaara oo goobjoog ka ahaayeen boqolaal shacab ah magaalada Baydhabo. Dalka uu bixiyay oo ku cadeeyay maxkamad inuu ku dilay gurigiisa uu ku riday Bolsonaro asig uu leeyahay. Sidaa darteed maxkamadda waxaa u cadaatay dembigii lagu soo eedeeyay eedeysana Maxamed Xasan Maxamed. maxkamadda waxay ku xukuntay eedeysana Maxamed Xasan Maxamed in Ruqayya Isaaq Cabdiraxmaan 35 jir ah ku dhashay degan Baydhabo. waxay ku xukuntay dil toogasho ah qisaastii marxuumad Aamino Maxamuud Malaaq Isaaq ayadoo loo cusbanayo shariicada islaamka iyo qanuunka dalka u degsan, gaar ahaan aayadaha 178 iyo 179 suuratul Baqara iyo aayada 45 suuratul Maa'ida. maxkamadda markay aragtay qodobka lagu soo eedeeyay ee ah 434 heerka ciqaabta Soomaaliya, maxkamadda waxay ku xukuntay dil toogasho ah ee qisaastii marxuumad Aamina Maxamed Malaaq Isaaq. wabilaahi tawfiiq. bishaaro waxaan kuugu bishaaraynayaa application-ka Baysi waxa uu kaa caawinayaa inaad ehelkaaga lacag u dirto adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqada. loo diraha lacagtu waxay ugu dhacaysaa telefoonkiisa gacanta. Baysi waxaad ka heli kartaa App Store-ka iyo Play Store-ka.